أنا عبد الرحمن دون واحد شالي هالسؤال كويديو ما بدمه هذا سؤال أو إسمتي ماي وأنا ها ورك حمرنا كورنا ها سؤال بان كويدين يا قرتو جوريسي أدو هذا متشالين كير هذا صوغ الشيء دتك وحي كاد حركة فيلمان الله نحرسته مرحوم كسوران يجوان مثليا سدان فيليو أي مركو جوريس لقى حركة متشالين قرمه قرتها كلانتين يسيدا كنت مي أرنتاس والله هنا روح هاي horta bariye in badan baa anagu waxba wada jirin aan saaxiibahay marxuumka Allah ay raxmiyo waan wada fariisan jir bariye badan waaban la duubiyo waxa waan nibca kamarada ha dabadeedna dhowr jeer adigu waan diidiiday waxaan ku warniyo hawleena kala halkaan iskaga wadanaynaa laakiin inaga daa oo maanan shirki maalintii ugu horeysay waxaan u malaynayaa waxaan naga duubay in loo jeeyo khum Abdi Wasa ayaa naga duubay oo niyo maanta lagu joogaa ha oo bariga deena yar baaba himka waniga boobay ayaa naga duubay marka kii ugu horeeyay kaas uu ahaa hadda ma garanaysaa sax adigu markii intayda kamarda soo gaarin ba ayaanu saaxiib baanu ahay marka adigu barigi dambu baade soo kuuray waxa ku soo baxay ha sax marka deemana kala hari jirin marxuumka Ilaahay raxmi ha markii dambana de aakhirun baan Ilaahay qabadsiiyay isagana aniga way soo reebiyo intayada kale meesha joogi jirtay marka intaad isleedahay mutaajilooyinkii arimahaas inta aad waday iyo intii aad kamar dabadeeda joogtay farqi adiga ku dhaxeeyo qof ahaan qiyaas kartaa way badnaydoo mid qaar badan oo aanan matali oo haddana la socday baa jiray qaar badan laakiin beri dambe ay ahayd beriga aan ha aad u maasan tahay saydiye كل رنتي برامج dhexdiisa ma ku jirnaa inaan isku soo gabagabino aan jecelahay Cabdiraxmaan baan dib ugu laabanayaa Cabdiraxmaan kul runtii waxaad ahayd dadkii dhalinyarada ahaayee magaalada Burco ku bilaabay dhalinyarada ku jirtay ha waa wada ahay war asna ma ahayn asna ma faqa sheeganay soo kidnii kan weyn buuri joog dhalinyarada waa wada ahay mala koofiyad lagu khaldaya waa koofiyad waxaad Cabdiraxmaan kooxda ayatiin iyo xiliyadaad bilowdeen iyo arrimaha majaajilooyinka iyo suugaanta waqti fog ma yahayn maantana kulli de meel baad joogtaa xagad isleedahay adigu aad ka gaadhid arrintan maanta aad ku jirto niyo arrintan wallahi anagu horta nooma qorsheysna marka ugu horeysa xagaan ku soconay iyo meel dadku waxaan baa hor u socon baa la yiraahdaa meel la isku wadaan warta garan waay laakiin waxaan kulli waa wax qof ku dhax abuurano iskaba daaba soonaysaa wala kala galaysaa haddana waxa arkaysaa adigu wax ka sameeyay dadna wixii mar kula wacnaana waxa soonaysaa gudbi wadiga gudbi marka kulli in wax la yiraahdo ama wax la soo gudbiyana waxa ka wanaagsan in wax la barto haday tahay qaabka de wax loo sameeyo haday tahay waxan bal aqoonteeda ugu dambeysay halka laga gaaro marba in wax lagu sii kordhiyo marka riwaayadahan iyo kulli adigu iyo majaajilooyinkan imaka inta badan ma jecel anigu iyo marmar iyo dhifan ku tuuraan laakiin suugaanto kale ama jimaasooyinka kale balniyo haday de waqtiga Ilaahay nagu simo inaan kuwaasi wado oo ma garanaysaa bal hadii lahaydmo insha Allah ha wixii dambe waxa jirta kulli heesa badan baad la qaado ha heesaha laga qaado wax ma lagu sheegi kartaa Allah de qaybaha wadka igu daran heesta ciiga qaajiri heesta maxay macnaheedu heesta dadku qaar bay ugu dhahaan horta odaga muxuu ku maagay kowdi saddeqi muxuu ku maagay waxay dambi la'aantan iyo docdan igu banaan deeqay hooyada dambi kuma leeyahay dadka aabaha baa igu daran baahi ninba habeen meel baan soo fadhiisanay habeen markaas nin baa sheekaynayo ninkii baa mid ku war gabadhii ma lagu soo celiyo horta markaas uu yiri ma yeelay soo celin way ga maqantaa soo ogniga waxa lagu keenay waa masuul warna inaan armiyan garanayno iyadu ima diidana hooyadeedii ima diidana walaaladeedii ima diidana Ilaahay odayga abaheed bi ugu taagay oo aan ogolayn buu inuu soo celiyo gabadhii xitaa waxaan ku wax walba aan ku siiyo diid kowdi de marka odaygaas ay ugu daran buu yiri ma garanaysa didna halkaas aan ku horas ka keenay dadka qisayahay dadka aabaha
ayaa igu daran heesta Yuusuf Cigaag halkan ka salaamay cigaag haa wadeen badan aan soo wada jirnay makana wada soconno haa soo wada bilownay marka aad iyo aad baan isagana u salaamaya xildhibaanka xildhibaanka ma dhiman oo laga qaaday baan maanaya dhaweyta warkiisa ma helni niisoo dabeero korsan baan arko waxaan u manaya xildhibaankii waxaan u manaya inaan xildhibaannimo inaan goy shaalka ahaa wallahi farabo ugu jirin baan manaya waayo isagoo dameer saaran baan arkayba marka warkiisiina laakiin wareysan doona haddii aad baan u salaaminaa isaga asxaabta kala dhamaan daawadayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee labada jila aynu maanta ku wareysanaynay stuudiyaha magaalada Burco ee telefishinka Sahan Saydiyow maxaad suugaantaadii kale inooga soo xuli lahayd inta dib u eegto waxaan oran lahaa gabayleeho yaab waxay yaabkaysa dhigay yaababkaana keenay ee aniga iga yaabiyey ayaan weli la yaabay waxsa yaabi doontaan markaan yeelka soo dhigo markaa jira yelintaadan oo dhan tukuhu yalaalaas leeyahay yurta bahalka neefsiisita ayaa lagu yidhaahdaa yaxdo loodo oo yahoontana yaxba yeedhmadeeda yaydu hilibka macalaalise yaydu hilibka macalaalisay wayuyubizaaye meesha yoolaa ninka raga marbay kala yabaalaane warde gabaygan waa gabay laga yaabay meesha yoola ninka raga marbay kala yabaalaane yaafyaafka meelahan ka jira yuganba maysaane yaafyaafka warka hoosta yaacda malaa yabanka eegtaane yaafyaafka meelahan ka jira yuganba maysaane haya sirine gabaygaygan wacan galiya youtube-ka gabaygaygan wacan war gabaygiina dir waa kala yari lalaawey gabaygu waa dheer yahay kowdhe waa gabay fara badan waa yaab kowdhe waana socdaa fariin baan dirto waxaa tiri galiya youtube fariin baan dirado waxaan galiya youtube-ka oo dee waxaan meelahan la eegiba maayey meelo kale dadka indhahooda haya anu kelmada la yaabo taqaan warka hoosta yaaca ma keegtan dee waxaan ka keenay bismillaahi raxmaan erey saxaafadda warka hoosta yaaca iyo barayta arrintaa waxay baray iyo waxaan malaynayaa war waa garanayaa meeshii waxaan u malaynayaa horta ninka ma maqashay ninka la yiraahdo tafatiraha ninka tafatiraha ugu waa kan kowdhe waxaan may wararka hoosta yaacayna isaga ayba ifahansiiyey wararka hoosta yaaca warka liidka mara oo aniga dhaaguma ma qabtaan kowdhe marka kaasina kaasuu ahaa wax ma jiraan kaa dhex guuxayo bismillaahi raxmaan dadka waxaynu ugu soo gabagabaynaynaa dadku marka hore waxaa la yidhi malakul jibriil nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu yidhi wuxuu yidhi markaad nafta iga qaado ma soo noqonaysaa anigu waxaan ahay nebi aan nabi ka dambayn adiguna waxaa tahay dee malaa'igta dee sayidka wuxuu yidhi 3 jeer baan imanaya oo dambana dunyada imanaya markuu nabi maxamed nafta ka qaaday kadib mar waxaan qaadayaa buu yidhi barakada marna waxaan qaadayaa buu xishoodka marna waxaan qaadayaa buu iimaanka marna waxaan qaadayaa buu diinta ما هو أفر مركا قدام بيسا مركا آيات أورانيسا أنت قف لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه والدنيا ده تشوفه للرجل مايم هي تاسي واسقسيا هرتوحي صدق دي كلام قاد إيمان متشرو إيمان نفلي متشرو كودي هادو تشرنا مبورة وادم بوقفي حشود متشرو هذا إمك أنا حسوستها أيابا برعو
guri halkaas ma ku jir tiin baa halka u lijiray tiin tiin yaro de tiin yara biyaa lagu shubay jiray ku garanaysan kabiyado qaada maartay jumbo qorin tiin kaasa lagu shubi jiray wallahi dharka waa lagu meedhi oo wal abij ilaahay baan war wax kale iska daa imika Soomaaliga ma daray reerku laba haamood oo yaryar mid walba daraan qaadaa u dhaasan jiray bishii laba jeer baa dhaasan jiray imikana guri walba waxa ka qodan xurfad barkad baa ka qodan biyana kuma filan oo may marka barakadii baa dunida laga qaaday tanaga imika waxa saaran guri walba waxa saaran 3 taangi reerkii waa biyaay miyaan barakadii laga qaaday waxa lagu leeyahay waxa lagu cuni jiray 100 shilin baa waxa lagu cuni jiray 50 shilin dee way barakaysnaay imikana hadii lagu dhiibo 1 milyan waxba warkimays ha markaas la oranay habeen waa shaqeeyaado waxa la intaas u qaata oo ma intani maxay tahay miyay barakaysan tahay waa kululiyay tan waa ka waxa looga cabanaya dadkii wixii aan jirin ayaan la sheegi wixii aan jirin beenta war waxaan jirin mid kale qof walba wuxuu yahay ilaahay u baaw qof walba wuxuu yahay ilaahay u baaw ha ilaahay wuxuu ku dadkayga ummadayda iida war hadii qof walba mid xil haya iyo mid aan hayn iyo mid kale hadii dabad Allah kida lagu dhigo oo la maagayo ha oo la eriyanayo xagee ka imanay xagee baraka ka imanaysa xagee bismillaahir rahmaan arinta marka iyada taana waxba ka oranaya hadii ilaahay ka dhigo waa UFF ka meelahan ka jira Uganda maysan ma garanaysa war marka diinteenu imika xishood ma jireen imika diinti way wacantahay aad bay wacan laakiin waxyaalo badan oo mobilada iyo waxaas mooyaan wax u dhimanaya mooyaan diinteenu maalinay ka wacantahay oo ka sarreysa ma jirto waxa ayaan lagu sheekay magaalada Burco waxa la yiraahdaa war magaalada waxa la joogay iyadoo dumarku isqaawiyeen dhowr 8 waa la isqaawiyay wax walba iskuulada waa lagu dhigi jiray Masar baa laga diiday dawladii faqash Masar baa laga diiday waxa hablo waa inay shaar iyo surwaal xidhaa baa inankii intuu waxa isku kursi inankii intuu isku kursi baa Faranis baa diinteenu meel wacan wadiga aad ku habli waadadeen waxa lagu leeyahay meel baa wax lagu dhigaa iyo sidana wax la yahay iyo sidana wax la yahay diinteenu heer sare ay leedahay ilaahay baana ilaashanaya diinta inana waynu ilaalinayna culimadina waa joogtaa laakiin waxa maanta la yiraahdo diinteena sidana loo soo galay aamanuun ayay meel xun maraysay dib baana loo soo maray maantana way wacantahay boqolkiiba waana ku dadaalayna laakiin hal laga daayo nushushada iyo waxa la leeyahay meel walba waxbaasi dadka la maqashinayo waxaas waa waxaan jirin ilaahay baa iyagu og laakiin waa la saxayaado in hoos ahaan la isugu sheego wixii haday jiraan in hoos ahaan la isugu sheego oo dabadeedna la yiraahdo de la qabto iyadan cidba ogey laakiin waxa baxaya waa eedan war diintu meel wacan bay maraysa cidina ina duwi kari mayso waynu u dhalanay qof lebarkii nabi aadan markii ilaahay ku afufay dadka lebarka nabi aadan ayaa waa qof gaar ah ma dhasho ilaahay ku doonayna isaga duwo qabadsiya gaar waa wada muslim dadka marka dhasha marka qof walba ilaahay baa marka dambe ama gaal ka dhiga ama muslim ka dhiga muslim baynu cidina ay gaalan kari mayso wallahi hadii umad way isku tukada la gaalan kari maayo waa tahay digmo ku gaabanaysay Cabdiraxmaan magaala Sariir waxa jira magaalada Burco inta badan dadku xiraadaan wadaadda magaalada Burco jooga waxba laga ma ogola fankii suugaantii arrimaha laga ma ogola ama aan ka imaado waxyaabo shooyidii arrimaha noocaas arintaas aad aragtaa adigu waxaan inaad u arkaa horta wixii wadaadadu diidaa anana wadiid wixii wadaadku diido adigu waxaadan aqoon u lahayn aqoon u leeyahay dee waa wadaadka hadii waciyay ma garanaysa laakiin hadda tiro muxuu sheegaya dee adiguna wuxuu sheegaysa waayo qofku haduu kalaanka ilaahay ku raaw waxaas kuma wacna dee diid marka kaasaan raacsan Cabdiraxmaan Cali Jaamac abwaan Hello ayaan ku soo noqonaya Hello runtii adigu dee kulay heesaha bedelka baad aad ugu darantay
rag badan oo heesta lahaayo fanaaniinna dee cabasho midhan bay ka muujiyeen oo heesoodii dee saa doonta ka yeeshay bal gabagabadii maxaad inoogu soo xidhi lahayd dhinacayga wallaahi heesii beddelkaa miyaa markaa mid ka mid ah waxaad inoogu soo xidhaa jeclaan lahayd wax xalaala iyo waxaan ku soo xidhay marka yeelkeeda mid baan iska fuulayaa waxaan inoo soo qabanayaa xabad beddela xabadda beddelka kuwii hore uma ka soo dhex qabanaya mid imanka maaha cusub oo hadda taala maaha waxay la qaaday laakiin fanaan qaali ah oo nin damanuu fanaan yahay ninkan wacdiyii kowdhi heesta isaga la qaaday kowdhi Soomaaliya u fakeeray internet yaa u fuuray firiga yaa uga dhigay artolaayo tolaayo TikTok yaa fasaxay kan ku faraxsan baleeg feebarkii laga bax oo bal fiiri kuwan kale laadhooda lagu falay Soomaaliya u fakeeray internet yaa u fuuray firiga yaa uga dhigay artolaayo tolaayo TikTok yaa fasaxay ya heestaas ninkan ay la qaadiyo waa kan ku faraxsan baleeg feebarkii laga bax oo bal fiiri kuwan kale laadhooda lagu falay Soomaaliya u fakeeray internet yaa u fuuray firiga yaa uga dhigay artolaayo tolaayo TikTok yaa fasaxay oo bal fiiri fajacaye faalada kaani qoray dhaqankii fasahaad hablihii la fidmiyey Facebooku inawaal dhaqankii fasahaad hablihii la fidmiyey Facebooku inawaal saasay istuhay qaybaha yar roodintan waana dheerayde laakiin inta yaroo kooban ayaan ka soo qaadano ninka codka ku jira kula qaaday oo ninkan waa khatar weeye xagga codka khatar baan ku ahay waanan heesayni oo heesaha dee markii lama noocaya wadaadada diidan baana diiday waa heesi lahay xilligaas joojisay waa tahay mid wax tabaysa barnaamijkan ku darleen aad iyo aad u mahadsantihiin labadayda garab ayaad fadhideen wax badan ayaad dadkii u sheegteen barnaamij qurux badan oo inoo qabateen hadii ilaahay ka dhigayo waxaan jeclahay barnaamijyo badan oo kuwan ka qiimo badan aan isugu soo noqon doono cabdiraxmaan cali jaamac iyo axmed kaysi oo loo yaqaano saydiye aad iyo aad ugu mahadnaqayaa halkaad nagala socotaana waa sahan TV barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan waxaad ka daawan doontaan toddobaad kasta TV-ga sahan stuudiyaha magaalada Burco anigoo Maxamed Moota iyo barnaamijka la socodsiinayay howlwadanada kale sahan TV ee halkan ku sugan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaantiina waxaan leeyahay aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh